عمر بن الخطاب ayaa waxa uu yimid nin Allah ka raali noqday ninka waxa uu watay wiil Umar ayaa ku yiri waligay maanan arag nin cunugiisu ay sidan isugu egyihiin markaas ayuu ninkii ku yiri Umar oo ma ogtahay in wiilkani hooyadiis ay dhashay iyada oo meyd ah Umar ayaa arintii la yaabay oo ku codsaday ninkii inuu uga sheekeeyo sheekadii ninkii waxa uu yiri wiilkani isagoo caloosh hooyadii ku jira ayaa safar isoo galay kadib hooyadii ayaa igu tiri xageed nooga tagaysaa waliba aniga oo xaamil ah albaabka markii aan ka baxay ayaan xaaskayga caloosheeda gacanta saaray oon ku iri ilaahay adiga ayaan kugu amaaneystay wiilkayga kadib safar ayaan u baxay muddo kadib markii aan soo laabtay ayaan imaaday gurigaygii oo xiran dadkii deriska ahaa ayaa ii sheegay inay xaaskiisii dhimatay waxayna igu yiraahdeen xaaskaagii markii aan aasnay waxaan ku aragnay mucjiso yaab leh qabrigeeda ayaa qiiqaya tan iyo maalintii aan aasnay anigu waan cabsaday waan argagaxay buu yiri wallaahi wuxuu yiri xaaskaygu waxay ahayd qof cibaado badan oo soon badan oo saalixad ah qabriga xaaskayga ayaa la soo tusay ayuu yiri oo qiiqaya sidii ay sheegeen waxaan ku iri aan qodno aan hubinno markii aan qodnay waxaan aragnay buu yiri xaaskaygii oo fadhisa oo meyd ah iyo wiilkan yarkaayo ag fadhiya kadib waxaan maqlay buu yiri cod oo idahaya codkaasi kii amaanada ilaahay u dhiibtay oo qaado amaanadaada culimadu waxa ay yiraahdaan hadii uu oran lahaa ilaahay wiilkayga iyo hooyadii baan kugu amaaneystay waxa uu iimaan lahaa iyaga oo labaduba nool laakiin qadarta Allah ayaa ahayd oo waqtigeeda ayaa inta ku ekaaday qofka alla tala saarta ma khasaaro ee alle ha inaga dhigo kuwa tala saarto markasto